hadli karo. Inta ay sheegay waxay tahay Esther hooyo waa gabar oo qof dumar ah dhibka baad haasta bari adina ku dhaco macquul videoga shalay ka hadlan sidaas aan dhahay haddii aad rabtaan xaqiiqada hal qof ma ugu jira iniga dhan Soomaaliyeed in Esther u mahadnaq xitaa maxaa wala dhibaatada ku haasta wax u jira misal maxaa kula qabanaa hal qof dhan ma ugu jira intiina daabta intiina ku xiran no ma jiro hal qof ilaa hadda Esther oo imaade hal gabar garan moohaya wax laga sheego haya moohaya qof bilaala dhahaya moohaya waa wiil aad u wanaagsan waa wiil walaalkeeda waa wiil saaxiibkeeda waxaas laga filaysta inoo sameeyo ee laga yaabaa gabadha cidooda inay wiilkaas dileen السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سابق قريقا سورة نلسة جوكتين وانيقا وصلن بويا جنال كان يدام وصلن بويا جنال فضي عندي هذا الجنال كو عصبتا سبسكرايب نوصار لايك شير كومنتي ان waxaa idin wada barnaamijkeeda xasaasi ah arrin waa laga muskir aan bariyahan baraha bulshada haysatay ila idin soo daayaan raba ama waa idin ka dhaco warka meesha yaala wuxuu yahay dagaalka malahan ka socda social media dhanka Nairobi gaar ahaan dagaalka waliba ka sii socdo Esther Kurlibax iyo Qadar waliba mooha saddexda qof ay bariyahan isdaba haysato xaqiiqda waxay tahay horta Qadar ay idin sheegay asxaabta YouTube ka ku xiran ana maalinka YouTube bilaa maalinka maanta Qadar soo garab taagay meesha aniga madaxa ayaga uga saaranahay ana caanan ku soo noqday ee Qadar uusan ayaga uu nacaan ku madaxa u saarnayn ba ani kala garan waay gabar Soomaaliyeed in maanta uu nin raga baraha bulshada ku qabsooto waa ceeb adigoo nin raga waxa ku dhantay ina banaankaas wax walba asmaysan karto ama wax walba inaan ka doorbidin inay walaasha tahay ama gabar Soomaaliyeed tahay ama hooyo Soomaaliyeed tahay laakiin dibka meesha jira wuxuu yahay hadii afiis ama magac aad raadinaysid waxa arto asmin Soomaalida bariyahan waxa jiro qaldan ismiya because qof waxa jiro waxa sharaftiisa waxa sameynaysa waxa u sameynaysa sharaftiisa waxa u dhigaysa fiisa ku helay maanta waxaan aqsanahay dhiigayga waad u kacsiyaa jirkaada soo dhiigayga ma kaleemanay waxaan u xanaaqsanahay arrin xasaasi oo biyaha jirtay ma gartay arrinta waxay tahay Esther Kurlibax Qadar iyo wiilkan daamuha ayaa ka saabsan tahay Esther Kurlibax hadaan ku laabto Esther Kurlibax wiilkii soo caawiyay oo maanta meeshii taagan heerkii taagan soo gaarsiiyay ee waa laga warhaya Soomaaliyeed ma gartay ninkii bay magaalada keentay Nairobi keentay oo ku bahadishay sidoo kale oo dhaqantay de kullu waa laga warhayaa maanta wax cusub maahan waa fahamtay filaya ninkaas dartiis way u bahadishay muqaala magaalada u keentay xulti dhadhaab xagardheer meesha dhexdhaama la dhadhaab sax dhadhaab halkii la qabani aad oo xanaaqsanahay arrintaas Soomaali Maxamed kamay soo hadlay waa laga jiirsaday magartay waxa la soo kiciyay kullu inaan dhulkaas ku jirto waxaan tan la hadlayaa Qadar baraad hortoo dhow waxaa jirto inaan kugu baranay Esther Kurlibax agteeda inaan kugu baranay Esther Kurlibax adoo qoxotiga joogtiin xagardheera ama dhagax leemiya mees in lagu bartay halkaas ka soo dhigi jirtay waxyaalaha qosol badan TikTok ha ahaado bahalka laha wax walba waa ahaado muha xaq iska dhigay arrintiisa oo maanina laakiin warka meesha yaala wuxuu yahay maanta inuu social media soo fadhiisto dadka oo sheekeeyo Esther baakad ka dheysay waa hooyo Soomaaliyeed maqal waxay dhashay wiil adifaca inaad maanta baraha bulshada ku dhaceebaysaa dhaado habeen madoobeeyeen u gagaatimaysi guri ugu socotay wax macquul ma baraada wax dadka aqliga bil aadanka galaa ina sheegtaa fiican runtaan waxay tahay ina maanta aasmayso aad dhahdo waxaa dhacday habeen ayadoo gagaatimaysi guri darteed iga soo bari bii dartiisu Maxamed aan ka cabaal iisoo bari aqliga bil aadanka wax galaa la sheegaa way dhici kartaa wax walba laakiin waxa jiro wax munaasab iyo xeleeyeen wax kasto xeer ilayeen bas ani ma aaminayo qof bil aadan ah in biyo dartiis 9 saac beenimo nin dartiis u cabay wali u fiiriya Qadar Esther maanta uma kala xanayso mooha iyo Qadar because waa laba nin raga hadii xaq la dhahana Qadar ku leh oo inta soo shaqeynay oo inta soo dhiday YouTube-kaas mid kale YouTube-ka arinta YouTube-ku leeyahay YouTube-ka san waa YouTube-ka iga xoogti kan ay qaad baraada shala way caawinaysa gabadhaas magaceeda lagu bartay agteeda lagu bartay ayada caawinaysay hooyada Soomaaliyeed oo dhibaataysan ee qaxootiga joogta caawinaysay maanta Nairobi joogto ina maanta dadka ugu sheekayso ana arkay dadka kale ku dhaha arkay dad dhahay arkay uu leeyahay
qoftaas habeen madoobay soo gaagaatimaysay dadka public dhexdooda hataa ka dhahay inaa ceebeyso waa hooyo soomaaliyeed ilmay dhashay gabdhee dhashay mustaqbalay leedahay nolosha rajay ka leedahay hadafay ka leedahay heerka ay shala ku nooleed waxay rabtaa nolosha hadda ay ku jirto xilligeeda ay ku jirtaa inay raaxaysato lacagteeda ku raaxaysato waqtigeeda haddaa is leedahay waxay kaa xigsatay moohaa arrin dhab oo jirta maaha moohaa ay kaa xigsanaysa ani isma dhahay moohaa ay ka xigsanay qadar wallahi ma aaminaya because moohaa laga yaabaa waa dad isfahmi ani hadda maanta gabar haddaa isfahno guriga isla deganahay waxbaa isla duubanaynaa dad social media aan ku wada jirno wax wada qabsanaynaa wax wada xisaabtamaynaa wax walba inaga dhexeeyaan ma xaqiiqda dhabta dadka jaceelka ka dhexeeya bas inay soo socdaan moohaaya wax laga sheegohayaa moohaaya qof dilaa la dhahaaya moohaay waa wiil aad u wanaagsan waa wiil walaalkeeda waa wiil saaxiibkeeda waxaas ma laga filaysta inoo sameeya ee laga yaabaa gabadha ciddooda inay wiilkaas dileeni way dhici kartaa ama jaceyl ha ka dhexeeyo saa sheegtay ama saaxiibtinimo ha ka dhexeyso ama qaraabnimo ha ka dhexeyso way dhici kartaa wax walba laakiin runtaa waxay tahay qofkan saa isku fahansiinaysaa ani waxaan isleeyahay dad isfahmay waa dad social media ku wada jiro waa dad magac wada leh waa dad maanta guri isla degan oo maanta wax isla duubanayo runtaana waxay tahay intaasna in wax la wada qabsado marka qadarow baraada waa ceebowday hooyo soomaaliyeed maanta inay station geyso soo wareejisay ister banaanadaasaa geyso report soo qorato rafaadkaas ku kalifto ceebeyso wax dadka ugu raacaya ma fiis raadis dadaa kaa waalaay gabdhaha kaa waalaay wiilaa kaa waalaay war saas sharaf lagu maraadsado saas magac lagu maraadsado tartiib adoo xalisan karta arrintaada adoo heerkaas gaartaa daraad waxaa la sameynaya xal ay ku dhihiin labadooda waa loo dhahay baraada waa kaa qaldanahay raalli noqo sharaf waaye raalli noqo waa kaa qaldanay ilaahay ku dhaariyay saaxiibo ceeb ilaahay waa kaa ku ceebeeye isbitaal meel aad gaarina lagu geeyey isbitaal boojaa lagu geeyey waa kana waa lagu ogyahay isbitaalkii alla tagay waa laga salgaar laakiin ister waxay ballan ku qaatay haddii arrinka laga soo garbixi waayo lama dilin haddaa la dilaya dhahan waana run arrinta moohaa usoo jeesto horta ninkan way isfahmeen ha isfahmo maxmo waa dad isfahma waa dad social media ku dhex jiro waa dad isyaqaano waa dad guri waxay raba hadda isjoogna xataa isku imaanayo dad guri isjooga wax isla duubaaye dad guuxaana laakiin inaad dad ka dhaadhiciso haymadooba isla gaagaatameyn iyo guriga moohaa dartiisa liibana waa ujeeda ani waa ka maseersan tahay maseera jiro laakiin dhib ma leh isterna waxaa leeyahay walaali macaanay wiilkan waa wiil walaalka oo hashalay inaad u tartiibiso arrinta horta inaad oday ka adeegsaa ku faham ninkan asi maskaxda asi maaha dad baa waalayo dad baa ka waalay dad baa fuse le youtube-ka u kala kacay saan samey kan samee halkaas dhig kan samee xaqiiqda dhabtaa waxay tahay inay arrintan waxba ka jira mala awaalta waxaa ka dhacay inuu been sheego inuu gabar soomaaliyeed uu inshareer usoo xiro u dhaho wejig inuu usoo xiro u dhaho istarcaay bahdil halaas ku intay ku aragta u dhaho walaali macaanay istaray saari u jiraan waa ka qaldanta dheh somaa gar gabadhaas aqoon mali balse xaqiiqda waxay tahay ninkaas inuu soo sheegay uu gabadhaas soo diray uu dhahay muuqaalkaas iduub uu muuqaalka dabka meesha ka kacay uu asana jaanis weel uu kusoo hadlo ee dadkana garab ku siiyay shacabka horta dadka ma hubsaa wax horey kasoo galaya wixii ayagoona wixii hubsan wixii way sameynayaan horey dadkii ka qabsanayaan qofka waa la qabsanaa qofka waa lagu qeelinaa wixii rabaa lahaa kaala bool waa kanay lama dhahay isray maxaa kugu dhacay lama dhahay wuxuu kugu dhacay waxay sheegtay xataa inay habeen dhaxaas garaafo asi madaxiisa loogu geystay fiiriya gabar hooyo soomaaliyeed waa isar habeen madow meel socota haraanti wadnaha laga geliyay afkeedana ay ka sheegtay moohaan uu sheegay haraanti beerka ma ay ka geliseen oo rag 4 nin xoog badan 3 nin xoog badan inay waddo ugu harmaadeen ee haraanti ku dhuftay ilaahay ku dhaaray barfiiri maanta man rabo nin baraada nin walays ama habritis rabo inay maanta haraanti loo haraantiyo ma jiro runta asku sheegno maanta adiga laftaada qaro marti walaasha inay maanta haraantiyo hooyada marti walaasha habarta marti familka ay dhamurud laakiin ina maanta madaxa gabadhaas loo haraantiyo wiilkaasna madaxa ish loo dhufto arrin laga aamus karo ma hadee dadka dhacdo kula jiraan anaga gabadhaas la jirnaa seen birin gabadha ha qaldanaad ama ay qaldanaan ayada garabkeeda taaganahay waa gabar Soomaaliyeed waa gabar la yaqaano gabar ilmo leh waa maamo guri degan waa gabar sharaf leh wali ceeb lagu arkin wali wax lagu soo qaban waxa la yahay arrinkan in la dijiya fiican haddii aad ka qaldantaana waaba ka qaldantay waa la ogyahay inaad usoo fadhiisato xaqiiqada soo sheegato dhaa waan ka qaldanahay haddaa ka garbixaysana ayadaa kaa garbixayso ayadaa kaasoo garbixayso ayadaana kaasoo garbixayso taas waa wax la hubo marka waxaa leeyahay oo ku mahadsantii sida qurux badan muuqaalkan u daawateen waa idinka mahad celinayaa balse muuqaalkan hala sheer gareeyo hala gaarsiiyo isar moohaa iyo qadarbo
hala gaarsiiyey qadarna inuu beenaale yahay oo arrinkan arrin boojo ay tahay waa la waayey hala waxeeyo hala geeyo haloo geeyo muuqaalka haloo sheergareeyo aniga lafteeda waa u sheergareynaa idinkana sheergareeya muuqaalka laagtaa ka iloogin si dad badan u daawadaan commentigiina waa noo muhiim fikradaada waa noo muhiim noogu soo qoro fikradda waa idinka mahadcelinaa sida quruxda banaa muuqaalkan u daawateen waa kaaga mahadcelinaa sida laagta u saartaa u sheergaraysay 100% inay igu soo biirto waa ku farxsanahay inay aniga ku barto waa ku farxsanahay inay barato waa ku farxsanahay dhammaan waxaan leeyahay arrintan arrin waawaan hala geliyo inay la qalday waa loo jeedaa qaladkii aan loo badin gabadhaas muuqaalada ku horreeya ayagaa laga soo horjeeday la dhahay waa la eedeynaa la dhahay adaa qaldan adaa kana adaa saana balse waxaa loo inay beenaala beeniraad male heestaas waay marka waa ku mahadsantiisa qurux badan janaalku ula socotiin adii ka mahadcelinayaa waxaa idin leeyahay muuqaalka muuqaalka xigo peace and love